halkan waxaa la dhihi karaa waa goobta qura ee dunida ka mid ah ee aad looga weyneeyo laguna dabaaldego wax ku oolnimada gamaanka la rarto. Ku soo dhawow tartanka dameeraha oo halkan si joogto ah ugu qabsooma gu'iiba mar, waxaana sida idin muuqanaysa loogu diyaar garoobaa si weyn dabaaldega iyo ka qaybgalka tartankan oo si kale marka loo dhigo qaabeeya nolosha dhaqan-dhaqaale ee magaalo xeebeedka Lamu ee Kenya. Balse inta aan sii gudagelin tartanka, aan idinkaga sheekeeyo waxa dameeruhu uga dhigan yihiin dadka Lamu. Mid ka mid ah goobaha ay UNESCO u aqoonsatay tixraacyada dhaqanka iyo xarunta dhaqanka Sawaaxiliga Lamu. Taariikhda Lamu waxa ay ka soo bilaabanaysaa 100 qarni ka hor, waxaana la mid ah dhaqashada dameeraha. Waa magaaladii lagu dhisay xoogga dameeraha, waxaana halkan looga adeegsadaa gaadiidka kaliya. Waxaa lagu rartaa wax walba iyo xitaa fuulidda. Dhagaxyada guryaha lagu dhisto ayaa lagu qaadaa, iyo dhammaan dalagyada ka soo go'a beeraha waxaa suuqyada lagu keenaa dameeraha. 10 sano ka hor tirada dameeraha ku nool Lamu waxaa lagu qiyaasay 2000, waana iska caadi in qoys walba uu guryaha ku haysto 2 ilaa 3 dameerood, taasoo ka dhigan in 70% reeraha Lamu ay guryahooda ku haystaan dameero. Xarun lagu daryeelo dameeraha ayaa ku taalla magaalada, taasoo la dhisay sanadkii 1987. 4 Julaay ee sanadkaas oo ahayd maalintii la furay xarunta, waxaa loogu yeeraa maalinta xurriyadda dameeraha Lamu. Xaaladda ay ku noolaayeen waagaas waxay ahayd mid aad u liidata. Weyd caata awgeed la golongalay oo feerahoodu tirsamaan. Tani waxa ay haweeney dalxiise ahayd ku qaaday dhismaha xarunta si loo daryeelo gamaanka la rarto. Dameerleydu markaas kadib waxa ay bilaabeen inay nafleydooda ula dhaqmaan si fiican, waxaana u bilaabatay nolol bidqabta oo ay ka heleen xanaanada mulkiilayaashooda. Dhalmadooda ayaana sare u kacday. Intaas kadib xaruntani waxa ay caawimo weyn u ahayd dadka deegaanka. Si lacag la'aan ah ayay xaruntani ku daaweysaa dameeraha marka ay ka xanuunsadaan dad kale, waxaana ku sugan dhaqaatiir ku gaarooday dabiibkooda. Badi waxaa yaala hurgumooyinka ama dhaawacyo dhabarka ka muuqda oo aad u daran, qaar oga yimid dagaal dhexdooda ah iyo mid loo geystay intaba. Sida dhaqanka Soomaalida, dameerahani waxaa ku dhigan sumad mid kasta lagu baadisooco oo lagu garan karo cidda milkiyadiisa iska leh. Xamuulka iyo shaqada joogtada ah ee har iyo habeen loo adeegsado ayaa ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee laga diiwaangeliyo nolosha dameeraha, waxaana muuqata isku dheelitirnaan la'aan xagga rarka iyo hunguriga la siiyo ah, waxaana calaf loo siiyaa in aanu u dhigmin inta jeer ee la adeegsado maalin walba. Tani waxa ay sababaysaa inay jir ahaan daciifaan. Laakiin si kastaba, xaruntani karaankeeda waxa ay la tacaashaa wixii muuqan kara, waxaana sanadkiiba laga daaweeyaa xanuunada caloosha. Xitaa waxaa loo dubkiciyaa qoobabka si aysan uga qaadin xanuuno. Qaar kale oo dameeraha ka mid ah, laakiin waxa ay halkan uga yeeraan gurigooda joogtada maadaama kuwii dhale aysan noolayn. Balse durba marka ay gaaraan 2 jir ayaa lagu simaa gacanta ninka iska leh, lagamana qaado wax lacaga. Waxaana intaan soo sheegnay oo dhan barbar socda wacyigelin iyo la talin ku aadan hab adeegsiga habboon ee dameeraha oo la siiyo dadka dhaqda. Waxaana ay booqdaan dugsiyada waxbarashada si ay u gaarsiiyaan fariintaasi. Caruurta yaryar ayaa la fahansiiyaa xuquuqda uu leeyahay noolahan mayeeraanka ah ee maalin walba qayb libaax leh ka qaata qurxinta iyo fududeynta danaha kala duwan ee noloshooda. Markaan u soo laabano tartanka, waxaa ka qaybgalayaasha ay u soo xardhaan dameerahooda si aysan kaliya ugu guuleysan midka ugu dheereeya xagga orodka, balse sida kale kan ugu quruxda badan xagga muuqa. Gamaanka la rarto waxa uu lafdhabar aan sinaba looga maarmi karin u yahay nolosha. Geedi socodka taariikhduna waxa ay ifisay inuu yahay midka ugu wax ku oolsan inta la adeegsado. Laakiin waxaa muuqata in daryeelkiisa aan loo sinayn, balse loo kala dhow yahay. Shakina ma lahan in dadka Lamu ay yihiin kuwa ugu xanaanada iyo qadarinta fiican dameeraha ifka ku nool. Ma qabtaa in dameeraheena sidan oo kale tartan loogu qabto? Noogu reeb fariintaada xagga hoose lana wadaag asxaabtaada.